wacan oo wanaagsan daabadayaal meel walbo aad joogtaan kullu caam wa antum bil khayr. waxaa maanta dunida islaamka looga dabaaldegayaa maalinka koowaad ee ciidul fidrida. halkan waxaad ka dheehan doontaan barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha ee ciidul fidrida. mar aan makarafoonka Boundless Media la dhaxqaadnay shacabka ku dhaqan Nairobi ee xaafadda Islii ayaa waxaa wajiyadooda laga dareemay farxadda ciida, iyagoona nagu warbixiyay sida ay u ciideen, hawadana isu marinayay salaan iyo maxabeen. walaal adiga magacaaga ku bilaaway kusoo dhaw Boundless Media markuu ugu horreyn. waa dhowahay mahadsanid. magacayga waa Maxamed Cusmaan, aad iyo aad baa u mahadsantahay. waa dhowahay ciid wanaagsan. maxamed maxaa isleedahay ciidan ciidii hore ay kaga duwan tahay? waxay kaga duwan tahay hadda tusaale ahaan ciidii hore ee ciidul fitriga magaalada way naga yara xirnayd, masaajidada way naga xirnaayeen, inkastoo laakiin alxamdulillaah oo guryahan ku tukanay, laakiin maanta si jamaaca u tukanay maasha Allah, si jamaacana u farxayna. dambeyn adigoo fursadan Boundless Media ay ku siisay kaga faa'iideysanayo yaad halkan ka salaamaysaa? waxaan salaamayaa dhammaan asxaabtayda meel kasta ay joogaan, hadday noqoto Kenya, hadday noqoto Soomaaliya, hadday qaarad kasta ay joogaan waan salaamaya insha Allah, iyo waalidiintayda dhammaan iyo intay taqaanaba. ayaa baay adigoo magacaaga ku bilaaway kusoo dhaw Boundless Media. waan ku dhawaalaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan salaamayaa dhammaan bulshada Soomaalida meel kasta ay ku nool yihiin. waxaan leeyahay ciid mubarak, ciid wanaagsan. magacaaga? Leila Cabdikariin Aadan. Leilo, maxaa isleedahay ciidan ciidii hore ay kaga duwan tahay? ciidan wallaahi maasha Allah, ciid wanaagsan oo maxaa la jiray si farxad aan ku ciidnay. lockdown-kii taa maxaa la jiray nagala qaaday masaajidada ku tukanay. waan gartay. ugu dambeyn adigoo ka faa'iideysanaya fursadan Boundless Media ay ku siisay halkan aad ka salaamaysaa? waxaan ka salaamayaa dhammaan familkayga meel kasta ay joogaan, dhammaan waalidiintayda iyo walaaladayda salaamaya. waxaa ku noolahay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. aad u salaamaya qaraabada iyo Soomaalida dhammaan meel kasta joogaan. daawadayaal maanta waxaan isalnay asxaab ciideysanayso. walaal adigoo magacaaga ku bilaaway kusoo dhaw. magacayda waa Farxaan, aad iyo aad u faraxsanahay maanta maalin ciid magaalada Nairobi ku suganahay. maasha Allah, wallahi sayid u faraxsanahay. ay Farxaan, maxaa isleedahay ciidan ciidii hore ay kaga duwan tahay? wallahi sayid ciidii hore iyo ciidan maanta isku ma dhawaan xataa. waa ciidii hore qamaan ku jirnay, maantana ciidana waa ciid aan soconno meel kasta aan mari karno, aan xurriyad haysano alxamdulillaah. waa gartay. Farxaan, ugu dambeyn adigoo ka faa'iideysanaya fursadan Boundless Media halkan aad ka salaamaysaa? wallahi asxaabta dhan aan aqaano dal iyo dibadba meesha joogaan waa salaamaya. asxaabta intaan taqaanay iyo inta ay aqaaninba waa salaamaya. mahadsanid walaal. waa tahay walaal adigoo magacaaga ku bilaawaya soo dhaw. maasha Allah, marka hore waa salaamaya muslimiinta meel walba ay joogaan. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr. magacayga waa Maxamed Qadar, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan TV-gan ka soo muuqdo. Maxamed Qadar, maxaa isleedahay ciidan ciidii hore ay kaga duwan tahay? maasha Allah, ciidan ciidii hore ka duwan tahay. ciidan faraxsanahay waayo ciidii hore waqtiga uu nagu xayirnaa, waxa waaye maadaama lockdown uu jiray, corona saarnaa. maasha Allah, ciidan inay iidna aad ugu faraxsanahay. ugu dambeyn adigoo fursadan ka faa'iideysanaya halkan aad ka salaamaysaa? والله ما شاء الله الحمد لله. halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday macaani walaaladey aabay. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr, ciid wanaagsan. waa gartay. walaal adigoo magacaaga ku bilaaway Boundless Media kusoo dhaw. waa ku dhowahay in badan, aad baan u faraxsanahay inaan ka soo muuqdo TV-gan. magacayga marka hore waa Ibraahim. waxaan leeyahay muslimiinta meel walba ay joogaan aad baan u salaamayaa. kullu caam wa antum bil khayr, farxad ku wada ciida insha Allah. ciideeda nabad Ilaahay noo gaarsiiyo. maxaa isleedahay ciidan ciidii hore ay kaga duwan tahay Ibraahim? kulay ciidii hore waxaan ku jirnay lockdown, dadka may wada faraxsaneen, laakiin hadda waxaan dareemayaa dadka kulli shucuurtooda inay sareyso, farxadooda dareemayaan. ugu dambeyn adigoo fursadan Boundless Media ay ku siisay ugu faa'iideysanaya halkan aad ka salaamaysaa? wallaahi waxaan ka salaamayaa halkan hooyaday macaan oo ku magac la yiraahdo Xaliimo, aabay macaan sidoo kale asagana la yiraahdo Faarax, iyo dhammaan walaaladii in badan ugu dambeysay ayaga dhammaantood aad baan u salaamayaa. waa gartay. soo dhaw. waa dhawaa. walaal adigoo magacaaga ku bilaaway soo dhaw. magacayga ku bilaawayo waa Guuleed. maxaan ku faraxsanahay maanta inta waraysigan aan ka qayb galo oo maanta tahay maalin yawm faraxa ciid ah. sayid baan u faraxsanahay. ayo Guuleed, maxaa isleedahay ciidan ciidii hore ay kaga duwan tahay? wallahi ciidan ciidii hore waxay ugu duwan tahay. ciidan waa because waa dadkii oo dhan isku soo baxay salaadii aan tukanay, because ciidii hore salaad ma tukanaynin oo salaada jamaacada isku iimaan, laakiin ciidan sayid baan u faraxsanahay salaadii aan tukanayna. alxamdulillah, shucuurteena waxa lagu qiyaasi kara malo. ugu dambeyn adigoo fursadan ka faa'iideysanaya Boundless Media ku siisay yaad halkan ka salaamaysaa? والله meeshan waxaan ka salaamayaa oo la Soomaaliyeed meel kasta ay joogan iyo dadka islaamka
maxaan leeyahay farxad ku wada ciido maasha Allah soo dhawo thank you Adam walaal adigoo magacaada ku bilaabay ku soo dhawo marka hore Bonlas Media waa ku dhawahay walaal aad iyo aad ma santin idinka dhamaan magaceygana waa Fataax Fataax maxaa isleedahay ciidan ciideer oo ay kaga duwan tahay aad iyo aad ugu duwan tahay waa bashbash barwaaqo alxamdulillah nimcaysanaa waxaan sheegnaa waa dambi ay ugu dambeyn adigu ka faa'iideysanaa fursadda Bonlas Media ay ku siisay halkan ay ka salaamaysaa waxaan ka salaamayaa dhammaan qaraabada qoyska asxaabta all friends waxa ay aqaanay magacay muuqaalkaygaba walaal adigoo magaca ku bilaabay ku soo dhawo Bonlas Media magacayga waa Kindiin ciid mubarak kullu caam wa antum bikhayr Soomaaliyeyn meesha joogtiin ciid mubarak idin leeyahay waa idin salaamay dhammaan Soomaali Maxamed ay Kindiin maxaa isleedahay ciidan ciideer oo ay kaga duwan tahay ciidan laakiin kasto corona hatta oo hal meel lagu wada tukanin oo mashaadidaha lagu wada tukaday laakiin alxamdulillah ay adigoo fursadda Bonlas Media ay ku siisay kaga faa'iideysanaysaa halkan ayaad ka salaamaysaa hooyaday aabbahay dhammaan familka macal Soomaali Maxamed meel walba ay joogaan waa salaamaya hay walaal adigoo magaca ku bilaabay marka hore Bonlas Media ku soo dhawo waa walaal qaali magacay waa Caynaasha Aadan Cabdulaahi marka waa ku faraxsanahay maanta dhammaan ma aragtay muslimiinta oo meel walba ka dabaaldegayo oo ciid muslimiinta ah u tahay inkastoo corona wax walba uu jiro laakiin sida ay tahay alxamdulillah ku faraxsanahay Caynaasha maxaa isleedahay ciidan ciideer oo ay kaga duwan tahay ciidan ciidii hore walaahi waxyaalo badan kaga dumno laakiin shucuurta waa shucuurteeni inkastoo dad islaam ah wadanahay marka waxa waaye niyo waxa ay kaga duwan tahay dhihi kara waxay tahay isku tagi baa xogo isku iimaanayo hal meel ugu tukanayo baa xogo la diiday laakiin sideeda kale waa alxamdulillah walaal adigoo marka hore magaca ku bilaabay ku soo dhawo Bonlas Media waa ku dhawo walaal alxamdulillah ama Cabdiraxmaan Xasan Cabdi Cabdiraxmaan maxaa isleedahay ciidan ciideer oo ay kaga duwan tahay ma sha Allah walaal aad iyo aad oo kala weyn ciidii hore maana ciidin oo hal meel ku soo wada tukana malahan laakiin ciidan hadda hal meel lagu soo tukado jumcada lagu soo tukado kuwa kalena saas ay uga duwan tahay waan gartay ugu dambeyn adigu ka faa'iideysanay fursadda Bonlas Media ay ku siisay halkan ayaad ka salaamaysaa halkan waxa ka salaamay hooyaday Saxan Cabdullaahi Col abay Maxamed Baaru Daahir iyo inta muuqeeda inta Soomaali oo magaca Soomaaliga kala tahay ama af Soomaali ku hadashay agar soo dhawo waan dhaw walaal ku soo dhawo marka hore adigoo magacaada ku bilaabay Bonlas Media waa ku dhahay walaal macaan dhammaan saa igu soo dhaweysay Bonlas Media waxaan ku weydiinaynaa maxay kaga duwan tahay isleedahay ciidan ciidii hore wallaahi aad iyo aad waay maadaama bil Ramadaan aan soo soomnayn ay tahay sunda bari ay noo dhamaatay oo haddana maanta ay tahay dhammaan aawada soonnay oo maanta wada ciidnay midaas ugu duwan tahay mid aad shay qaali ah ugu dambeyn adigu ka faa'iideysanay fursaddan ee Bonlas Media ay ku siisay halkan ayaad ka salaamaysaa waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda qaaliga mid kale waxaan inta ka salaamayaa hooyadii aan ka dheeray aad u jeclahay oo in badan aan u xiisay dhammaan ana waxaan salaamayaa family dhammaan inta asxaabtayda dhammaan baa salaamayaa anoo magacayga ah Hanad Cabdalla Cabdinuur okay Hanad soo dhawo walaal macaan waa dhawahay walaal adigoo magaca ku bilaabay ku soo dhawo Bonlas Media waa ku dhawahay Bonlas Media waa magacayga saddexan waa Cabdiraxmaan Maxamed oo ku magac dheer magacadas Cabdiraxmaan maxaa isleedahay ciidan ciideer oo ay kaga duwan tahay wallaahi ciidan waa ciid farxad bisha Ramadaan aan soo dhameysano soddonka aan buuxinay muslimiinta dhan waxa leeyahay hadii farxad wanaagsan ciid wanaagsan ku soo dhawaada farxadda muslimiinta meel kasta aad joogtiin kal ilaa baan ila salaame anoo Cabdiraxmaan waxaan leeyahay hadii la faashaalo halaal raaxaysto ma li jirno ugu dambeyn Cabdiraxmaan adigoo fursaddan ka faa'iideysanay Bonlas Media ay ku siisay yaad halkan ka salaamaysaa waxaan ka salaamaa akhyaartayda iyo dadka igu khaaska ah ayaa salaamaya salaanka soo go'day kal ilaa ayaan u salaamaya waxaan dhihi lahaa hadee ciidan waa ciid wanaagsan teena kale Ilaahay na gaarsiiyo soonkiisa kana Ilaahay nabad nagu gaarsiiyo taas ayaan dhihi lahaa waa tahay daawadayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha ee Ciidul Fidrida barnaamijkan waxaa si toos ah uga daawanaysaan TV-geena caalamiga ah ee Bonlas Media xurintiisa magaalada tani Nairobi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Najiib Akhyaar intaan barnaamijka mid lamid ah ayna ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo ciid wanaagsan